السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، walaalyaal waa ciise maxamuud. waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo arrimihii dekedaha. ilaa shalay ilaa maalmahan Soomaalidu waa faraxsanayd oo waxay ahaayeen guul baanu gaadhnay. laakiin qiira jabaanteenu waa iska badan tahay. arrintan waa arrin hawl yar maaha. arrinta ku kaliftay dowladdaasi inay u soo badheedho madax bannaanida Soomaaliya meel kaga dhacdo maaha arrin yar maaha. marka waxa ay qaraarka ay soo saaraan jaamacadda carabtu awalba inta ay soo saareen hadda weligeedba waa jirtay. ilaa intii aynu burbursanayn oo dhan qaraarka waa la soo saaray Soomaadkana. marka dowladdanu hadday doonto way diidaysaa, dhegba u dhigi mayso. sabab waayo waxaa jira asbaaba weyn oo maaragtay arrintan waxaa lagu magacaabay iyada u tahay waxay yidhaahdaan siraac albiqaa. yacni qof maaragtay dagaalamaya siduu ku noolaan lahaa ayuu dagaalamaya, siday u noolaan lahaayeen ayay ku dagaalamayaan. sababtuna waa tan. waxaa jirta inta aan ogeyn, kolay dad badan way la socdaan, laakiin inta aan ogeyn waxaa meeshan jira mashruuc weyn oo ay wado dowladda China. mashruucaas waa mashruuc jidad ah, jidad xagga badda iyo beriga labadaba. waana kan iga dambeeya maabka ama khariidada jidkaas tijaariga ah ee China ay wado, waa kaa iga dambeeya. kilibka soo socdana si fiican baad uga arki doontaa. jidadka badda waxay maraan Soomaaliya, waxay ka mid tahay meelaha ay jidadka badda ee ay doonayaan inay mariyaan dariiqaas oo dariiqa xariirta la yidhaahdo. dariiqa xariirta hore u jiri jiray waa dariiq qadiima oo waqti fog laysaga gudbi jiray Yurub iyo China. marka dariiqaas ay soo cusboonaysiiyeen oo casri ah. kaas ayaa ay dowladda soo marka milooyinkeenna iyo dhulkeenna ayuu dariiqaasu maraa. siday u qorshaysatay dowladda China ayuu maraa ilaa albaab almandab, ilaa inta wixii ka shishay ayuu maraa. marka mashruucanu waa mid yacni jilbaha dhulka u dhigaya dekedaha imaaraadka sida Jabal Cali oo kale. jilbuhu dhulka u dhigaya, runtiina hadduu u dhigay, hadday bilaabantay inuu u dhigay wax weyn yeelay. waayo jidkaas bilowgii waxaa la sameeyey meelaha uu soo gaaray waxaa ka mid ah Bakistan deked ayay waxay ka sameeyeen magaalada yidhaahdo Jawaadir, deked weyn oo caalami ah oo Jabal Cali labanlaabkeed ayay ka sameeyeen. mashruucaas wuxuu wax weyn yeelay xarakaadkii soconayay Jabal Cali ayuu yeelay wax weyn. sidaa awgeed wuxuu kaloo wax yeelay dekeda Jabal Daariq la yidhaahdo ama Ashbiiliya sida dadka u yaqaaneen ayuu wax weyn yeelay. labadaba wuu hadeer wax yeelay. maxaa markaa dhacaya marka ay soo dekeduhu bataan oo dekedahaas oo dhan ay qabsadaan China ay ka faa'iidaystaan? maxaa dhacaya marka waxa weeyaan halkaa waa lagu kala tegayaa, khaliijka waa lagu kala tegaya. arrinta ka dambeysa dhacdaygan ay dowladda tan samaynayso waa taa weeye. waxa weeyaan cidiya ku dirir Soomaadkana. marka si aanay taas u dhicin waa inay mashruuca curyaamiyaan. weeye. say u curyaamiye lahaayeen waxa weeyaan waa kuwa dekedihii mandiqad oo dhan bay qabsadeen. waxay qabsadeen jasiiradda Suqadara, waxay qabsadeen Yaman oo dhan dekedaheedii, waxay qabsadeen kuweenii de hadda intii halkaa muhiimka ahayd ee ay waddadaas maraysay Soomaadkana. taa weeye. marka waxa weeyaan waa cidiya ku dirir. howlyaridaana maaha wax lagu gaadhayo qaraar jaamacadda carabtu soo saarto iyo qaraar munadabadan islaamku soo saartay. wax lagu gaadhayo ay yani waxaasoo dhan wax dee ku waajibaya maaha. iyada way diidi kartaa Soomaadkana. marka waxa weeyaan arrintuun yaayarka iyo farxadda aynu muujinayno wax ka weyn. waxaan idiin soo raacinayaa halkan clip yar baan idiin soo raacinaya arrintaa yani idiin sheegaya
runtii waxa weeye waa intaa una sheegay laakiin si tafaasiila si aad ugu keliya yar baan soo raacinaya xagga dambe oo carabi ku markii ninkii intii carabida garanaysa fidiyana yani waxyaabaha muhiimka waa la fidiya taas weeye sababta dabada ka riixaysa horta mashruuca kan mashaariicdan ay wado dowladda imaaraadku waana ka go-an tahay hadday xitaa gaadho inay deegaanada ay ictiraafto way samaynaysaa marka waxa weeyaan soomaaliya waxay u baahan tahay dadaal weyn bay u baahan tahay dadaal dowladdu waxaad moodaa madaxdii de hadalkii ra-iisul wasaaruhu okay wuu fiicnaa laakiin kuma fillayn waxaana qabaa ra-iisul wasaaruhu haddii aanu markaa aanu imaaraadka ku sugnaan lahayn markii heshiiska la saxeexayay inaanu hadalkaa idhaahdeen waa arrinta sidaa loo weyneeyey laakiin arrinta waxaa keenay forjadii ra-iisul wasaaraha la forjeeyey isagoo halkaa ku sugan heshiiska la saxeexday taasoo qalad ahayd ka dhacday imaaraadka ka dhacay ahaa ay si kale markuu tago iyo waqti dambe bay ka dhigi lahaayeen taani qaladka labaad muxuu yahay anigoo shacaba waan fahamsanaa yani inay wax jiraan dowladdu say u ogaan weyday inay wax jiraan oo shacaba baa ogaa markii loo yeedhay dad somaliland dadka looga yeedhay madaxdii looga yeedhay oo silaanyo iyo ina cali shile iyo waxa ay wada yimaadeen ra-iisul wasaarihiina loo yeedhay anigu waan ogaa inay wax dhacayaan marka say ku ogaan weyday dowladdu taasaa yani isweydiin mudan waxa weeyaan dowladda qaabkan hadda ay dowladdeenu xataa haddeer marka yani kuma filla inta la sameeyey kuma filla safiiradii looma yeedhin kii etoobiya lalamaba hadlin kii imaaraadka looma yeedhin yani ixtijaaj in loo dhiibo oo loo yeedho ayay ahayd arrintan haddii aan si geesinimo aan loogu dhiiran wax walba waa ka baqaynaa meesha baqdin baa ina haysa wax walba madaxdeenu waa ka baqayaan maanta waxay ahayd in si calana loo iclaamiyo in ciidamada etoobiya ka baxaan waddanka sababna waa haysanaa maanta caalamku inuu ku qadiriyo baynu haysanaa ciidamada etoobiya waa inay ka baxaan waddanka taas ayay samayn lahaayeen caalamku ha ku bedelo dadkan danaynaya soomaaliya nabadgelyadeeda ha ku bedelo ciidamo kale oo aan laysla ogyahay haddii kale ha haysteen kuwaas marun baanu ka qabsanaynaa ha haysteen kuwaa shayaadiinta soomaadka ciidamada etoobiya in la saaro waa daruuri tan kale aan idiin soo sheeka dhaafay ee mashruucan ku jirta waxa weeyaan china markay mashruucan bilowday dowladaha uu dariiqaasu maro bay u yeedhay waa ku shirisay china dowladihii waxaa ku jirtay etoobiya mabad bay leedahay dariiqan laftigiisa ayaa kan chinaha laftigiisa ay arrimo ka dambeeyaan soomaadka waxa sababta etoobiya loogu yeedhay oo looga qeyb geliyey maxay tahay soo etoobiya bad male dadka dowladaha loo yeedhayo dowladaha badda leh ee uu maro dariiqaas ka berigu xaggan asia u maraa iyo yurub iyo xaggaas u maraya marka waxa weeyaan halista ina ku xeeran way badan tahay madaxda soomaalidu inay yani keliya adeygaan inaa kursiga aanu u muuqan ee ay keliya adeygaan oo ay yani wax walba isu ritaagaan arrimaha caynkaas oo ka badheedhaan ya wixii idinka gacanta iyagaan wax walba ku haya laakiin inay badheedhaan baa loo baahan yahay geesinimo loo yimaada ayaa loo baahan yahay shacab ahaanna waa la mudaaharaday maalmihii dhaweedii wax caynkaasa de waa layna yaqaanaa waxa laleeyahay maalin bay soo baxayaan ama 2 casho dabeedna waa iska dhamaanaysa wax layna ku barta soo marka arrimaha noocaasi marka aynu maaragtay aynu wajahayno waxaa loo baahan yahay in si mug leh oo aan kala hadh lahayn waayo waxa weeyaan maanta haddii dowladdii ay saa tahay oo maaragtay dowladdii madaxdeeni way wada baqayaan sidii cabdullaahi yuusuf kursiga looga qaaday waxa weeye nin kastoo madaxoo yimaada wuu baqaya hadduu arrimaha qaarkood kuma dhiiran karo taasuna waa dee layna ku qabsanaya madaxdii haddaanay dhiiranayn arrimaha kale arrin iska fudud haddii dhinac laga eego madaxdu inay dhiirato bay ahayd oo maaragtay safiiradooda u yeedho wixii ku xumaanaya ha ku xumaada dhulkan ciid maaha marka waxaa looga baahan yahay madaxdii geesinimo iyo dhiiranaan baa looga baahan yahay
haddii kale ee taa la waayo dadkeena shacabkeena inu kacno oo iska dhicino cadow inagoo anina ka amar qaadanay dowlad iyo wadamo kaletoona ka amar qaadanay cala duul yacni adduunka usoo bandhigno waxa dhibaatada layna ku hayo waa inu ka dadaalno oo maaragtay dowladda halaada samayno aan kala hadh lahayn aan loo kala fadhiisan ilaa waxaas ay ku suulayaan dariiqaas un bayna hor yaalla maanta maadaama madaxdeena ay baqayso dariiqaas oo keliya ayaa ina hor yaalla inayna waddanka dhacsan marka arrimaha laysku mashquulinayo meel baynu kaga guulaysanay iyo waxbaynu kaga wax macnaa keeni maayo qaraarka jaamacadda carabta awalba waa jiray wuu jiray horuu u jiray shirkaasoo ay isku yaadaan jaamacadda carabtuba waa lagu soo qaadaa arrintaa waa soomaaliya madax banaanideeda iyo waxdadeeda waa qaraar baa laga soo saaray soo marka laakiin waxyaabaha hoose ee jira shirqoollo fara badan bayna kusoo foolle oo jira kaas laftigiisa sida china kaas laftigiisa ayaa shirqool ka dambeeya marka waxaa fiican in loo maaragtay arrintaa dadku maaragtay dee loo kaco dalka loo kaco oo aynu iska dayno isqeyla jabaanta iyo inaynu farxad iyo waxaas aynu si runa u dagaalano yaa dagaalkeenu banaan baxyo yani inta dibadda adduunka dacaladiisa ku sugan ee dadka dibadaha jira bay waajibka koowaad u saaran yahay kuwa guduhuna inay ku daydaan intaas un baan rabay inaan idiin soogo kiliibka waa daawanaysaan waa halkan hadalkaygan dabadiis ayaad daawanaysaan khayr baan idiin rajaynayaa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي الأسباب الخارجية التي أثرت على وأبرزت قضايا الموانئ الصومالية اليوم؟ طبعا الصين طرحت مشروع كبير سمته طريق الحزام والنار أو مشروع طريق الحرير الصيني. هذا المشروع الاقتصادي له وجهان بري وبحري، والصومال تقع ضمن المدار البحري للمشروع. كون منطقة باب المندب كانت مهد تجارة طريق الحريري قديما الذي كان يربط بين قارات العالم القديم اللي هي آسيا وأفريقيا وأوروبا. الصين فعليا بدأت في تنفيذ مشروعها هذا، وهي بدأته في استئجار ميناء جوادر أو جوادر الباكستاني لمدة 40 سنة القادمة. طبعا هذا الميناء سينهي حياة ميناء دبي وجبل طارق، وهذا فعلا أثر مؤخرا على اقتصاد دبي، ولم يعد له بريق كما كان دبي واقتصادها. في العام الماضي 2017 والتحديد في مايو أيار دعت الصين كل دول العالم إلى اجتماع في عاصمتها بكين، وكذلك دعت رؤساء الواقع دولهم اليوم ضمن طريق التجاري القديم. المثير للاهتمام أنه تم دعوة إثيوبيا إلى هذا الاجتماع، رغم أن إثيوبيا هي دولة ليست ساحلية، أي أنها لا تطل على أي بحر، هي تقع داخل أفريقيا. هنا علينا تفكير كثيرا لماذا وماذا ستستفيد الصين ولماذا دعت إثيوبيا إلى هذا الاجتماع وما إلى ذلك. موضوعنا الأساسي هو أن دولا مثل الهند والإمارات هي ضد هذا المشروع بأكمله، حتى هي رفضت الفكرة. لذلك سارعت الإمارات في اللعب في الوقت بدل الضائع، واستأجرت الموانئ الحساسة لمضيق باب مندب الاستراتيجي كميناء عدن، ميناء جيبوتي، ميناء إريتريا، ميناءي الصومال سالفة الذكر، والسيطرة كذلك على جزيرة سوقطرى. ما الهدف من هذه الموانئ والجزر التي تسيطر عليها اليوم الإمارات؟ طبعا الهدف منها هو إضعاف هذه الموانئ، والدليل على ذلك هي العقود التي تبرمها إمارات مع تلك الموانئ أو مسؤولي تلك الموانئ، وهي عقود طويلة الأمد تتراوح ما بين 30 سنة إلى 100 سنة لبعض الموانئ، لأنهم يظنون بذلك أنهم سيقفون أمام المشروع الصيني العملاق الذي يريد أن يغير وجه الاقتصاد العالمي طبعا. وكذلك حتى لا يتوقف ميناء جبل علي المعروف عن العمل، فيجب إضعاف تلك الموانئ المنافسة واستغلال حالات الحرب أو الفقر أو حتى الجهل التي تغرق بها سكان تلك المنطقة.